والله معلمين تاني يسكن كاني والله معلمين تاني يسكن waxaa warbaahinta ay shaacisay sawirka ninkii dilay 10 qof ee ardayda ahayd ee iskuulka ku yaala magaalada Örebro ee Sweden dilay sidoo kalena asaga ayaa isdilay ayaa leeyahay ilaa hadda booliisku muusan sheegin in uu ninka isdilay booliiska goobta 10 daqiiqo bacda ay imaadeen ninkan uu ku hubeysan 3 qoray ninkan 4 qoray ayuu wuxuu u qaatay shahaado kaligiis ayaa noolaay 10kii sano ugu dambeysana shaqo la'aan ayuu ahay warbaahinta qaar waxay ku tilmaamayaan ninkan maskaxda in looga jiray maadaama bulshada uu ka dhax baxay mar ay wareysteen wiilkan familkiisa goobta markuu yimid albaabka hore ayuu ka galay wuxuuna bilaabay inuu dadka goobta joogay oo iskuulka ku dhex jiray inuu xabadeeyo qasanado badan ayuu qasaariyay qasanado badanna waa u harsanaayeen booliiska hubeysan markay soo galeen waxay u imaadeen asagoo mayd ah iskuulka baaxadiisa ayaa u saaciday boqolaalka qof ee dhiganaysay in ay ka baxaan iridaashii u dhawaay sidoo kalena kuwa badan ay isku soo xiraan kalaasyada iyo sidoo kale musqulaha muuqaalkan ayaa waxaa duubay wiil musqul isku soo xiray muuqaalkan waxaa laga dhex dheehanayaa asagoo dhahaayo nooga baxa Yurub ilaa hadda booliisku ma soo shaacin ninkan waxa ku sababay oo u dilay dadkan waliba ajaanibta u badnaay qaybta uu galana waxay ahayd qaybta luuqadda lagu baranayay dadka uu dilana badankood waxay ahaayeen ajaanib dadka qaar mar la wareystay ayay sheegeen in ninkan uuba dooranayay dadka uu dilayo booliiska ilaa hadda baaritaan ayay wadaan ninkan 3 qoray goobta la galay waliba ilaa hadda booliiska ma aysan shaacin sawirkiisa laakiin sawirkiisa warbaahinta way haysaa oo booliiskana wuu og yahay laakiinse baaritaankiisa ayuu rabaa inuu dhammaystirto ninkan qalabka ay ka soo qaadeen gurigiisii mobiladiisii iyo kombiyuutaradiisii kulli ayay baari rabaan haddii ay jiraan dad kale oo asaga ka caawiyey in falkan u dhaco booliiska sidoo kale su'aal la weydiiyay ayaa ahayd goobta sida uu ku yimid ninkan ilaa hadda booliisku wuxuu taagan yahay baaritaankeena ayaa dhammaysanaynaa kaasoo qaadan kara maalmo kale